toddobadii bishii Abriil sanadkii 1926 haweeney Irish u dhalatay ayaa ka soo dhex baxday dadweyne fara badan oo isugu soo baxay magaalada Roma kadibna waxay bistoolad sanka kaga dhufatay hogaamiyihii awoodda badnaa xilligaasi ee maamulayay dalka Talyaaniga ninka lagu magacaabay Benito Mussolini. King 252 kulanti wacan wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa janalka King 252 ku soo dhawaada gacmo furan. haddii aad iminka nagu soo biirtay fadlan subscribe saar si janalkan aad ugula socoto warbixinada caalamka kuwada ugu xiisaha badan. asxaabtii horena haddii aad ka mid tahay fadlan sheerta ilaa inoogu dadaal waad ku mahadsan tahay la socodkaaga. waxay ka mid ahayd 4 qofood oo isku dayay dilka hogaamiyahan, balse iyada ayaa waxay ahayd qofka keliya ee ugu dhowaa ee geesinimo muujiya sidoo kalena sigay Mussolini. gabadhan oo lagu magacaabayay Violetta Gibson ayaa lagu tilmaamay geesiyadii qarnigii 20aad ee isku dayday in ay ka hortagto siyaasadii fajistanimada ee Mussolini. haddaba in badan oo dadweynaha Soomaaliyeed way maqlaan Talyaaniga waa fajiste, halkaas ayuuna ka soo bilowday. markii ay ahayd taariikhdu 7 bisha Abriil sanadkii 1926 haweeney u dhalatay dalka Irish ayaa waxa ay ka soo dhex baxday dadyow fara badan oo isugu soo baxay magaalada Roma kadibna intay bistoolad la soo baxday waxay xabad sanka kaga dhufatay hogaamiyihii awoodda badnaa ee xilligaasi dalka Talyaaniga maamulayay Benito Mussolini. hase yeeshee waa uu ka badbaaday isku daygaasi dil. haatadan waxaa socda qorshe lagu dhisayo taalo lagu xusuusto taasoo laga dhisayo magaalada Dublin. 3 xabadood ayay ku riday Mussolini ka hor inta aysan xabadda qoriga aysan ku rakanin. kadib markii ay muddo ku xirnayd xabsi ku yaala dalka Talyaaniga ayaa markii dambe waxaa loo wareejiyay dalka Ingiriiska oo ay u dhalatay, waxayna geeriyootay sanadkii markii uu ahaa 1956. mas-uul ka tirsanaa dowladda hoose ee Dublin Minix Phelan oo golaha deegaanka u gudbiyey mooshin lagu doonayo in lagu meelmariyo xuska taariikheedka haweeneydan ayaa BBC-da u sheegay in falkan geesinimada leh ee haweenka mar waliba laga qarin jiray. qisada haweeneydan ayaa waxaa laga soo saaray filimaan iyo sidoo kale buugaag. kumuu ahaa Benito Mussolini. Mussolini waxa uu ahaa hogaamiyihii xisbigii National Fascist Party, waxa uuna hogaaminayay dalka Talyaaniga uu la wareegay xukunkiisa wax yar uun kadib dagaalkii koowaad ee adduunka, isaga oo ay caawinayaan ciidamo dhar madow ah xiran oo aadna u hubaysan. waxa uu gebi ahaanba burburiyey nidaamkii dimuqraadiga ahaa isaga oo taageeray Hitlerkii dalka Jarmalka maamulayay iyo Generaal Franco ee dagaalka sokeeye ku waday dalka Spain. waxa uu dhaqan geliyay qaar ka mid ah siyaasadihii Hitler sida in uu dadka Yuhuudda ka xayuubiyey xuquuqdoodii ee dalka Talyaaniga ku sugnaa, waxaana la sheegaa in wax ka badan 7,000 oo Yuhuud ah ay ku dhinteen gudaha dalka Talyaaniga xilligaasi. Mussolini ayaa la dilay sanadkii markii uu ahaa 1945 kadib markii ay gacanta ku dhigeen ciidamadii isbahaysiga isagoo markaa isku dayay in uu ka baxsado dhibaatada markaasi soo wajahday. ciidamadii isbahaysiga xilligaasi ayay la wareegeen maamulka dalka Talyaaniga, waxayna dib ugu soo celiyeen dimuqraadiyaddii hore uu u lahaa, iyagoona meesha ka saaray xukuumadii cusbaa ee uu ku soo kordhiyey Mussolini oo ahaa nin fajista ah oona jeclaa in xukunka keligii uu maamulo sidoo kalena uu ku dhaqmo sharci waliba markaasi isaga uu doonayo.